بسم الله الرحمن الرحيم gabadhan waa gabar xanuunsan oo walaashiina waxaa la yiraahdaa magaca khadra xuseen baa la yiraahdaa way xanuunsan tahay xanuun waxa haya la garan waayay oo mar beerka looga dhagayo dhaqaatiir badan oo wadanka lagala tacaalay waxay ku sheegeen qaar gooryaan nabarku markuu qabto sida ka muuqata waxa weeye waa saas u maartay hadda ugu fiicanta xilliga ugu fiicanta hadda weeye marka goormuu ka haya khatar meeqa sano ka haya xanuunkan sanadii 6 bilood ayaa haye see lagu qabanaya halkaas marka laga qabanaya tartarka ka duwaa dadka sukay keenay ama tagaya xisay waa isbedelaya oogay gacan way xanuunaya hooy Allah ka soo waa gartay marka maxaa ummadda Soomaaliyeed oo ku daawan doonto walaalaha ka codsanaysa wixii xayaliya wadaan dhaqtar caafimaad lagu dhigayo wadaan caawiya waa gartay meeqa islaameed ilaa yaqaan marka 3 saac 4 saac ku nabar markuu qabto haduu dalmaan 12 saac yahaynaya haduu 6 saac yahaynaya mar bilaa sidii uu naxstahayo laakiin nabar tagayo ma aha waa gartay marka dhaqaatiirtu maxay ku dhahan marka u tagto kale halkan wax kama qaban karna maxay kugu sheegeen bahal bay ugu sheegeen daba bahal baa la isiya marka la istar markii waan ka bilaabaya waqtar fiican baan u baahnaa walaalayaal saad u jeedaan qofkii qof muslim kurbo ka qaado ilaahay wuxuu u ballan qaaday inuu ka qaadayo gabadha walaashiina insha Allah haddii alla yiraahdo wixii aad u tari kartaan dadka muslimiinta ah qofkii muslim caawiyo ilaahay meel buu uga bixinaya marka insha Allah haddii ilaahay anna waxaan rajeynayaa khadroy in dadkaas walaalaha Soomaaliyeed ay ku soo gurmadaan oo xanuunka ka naxaan ma garad insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa qofka xanuunsan aad u jeedaan oo joodariga ku jiifa الله عافية علينا إذا كان أسوس القيس وحده أبو الدم